yaa dilay Bob Marley iyo Michael Jackson iyo maxay tahay xiriirka u dhexeeya Imaaraadka iyo khaarijintooda? waa sirta ugu qatarsan ee laga helay feelasha Epstein, sir si tartiib ah u kashifaysa dhammaan sawirka qarsoon. ciwaanku waa mid naxatin soo maaha. hagaag soo dhawo kursigaaga hagaajiso oo siiba daawashada si aad u dhagaysato wax ka qarsoon. hana ilaawin inaad like iyo share dhahdo si walaalaha kale ula socdaan silsiladan. bal eeg oo dhagayso si aad u fahanto qaabka ay u shaqeeyaan kooxaha qarsoon ee maasuuniyadda marka ay la tacaalayaan qof kasta oo isku daya inuu ka hor yimaado. waa inaad ogaataa tallaabooyinka ay qaadaan. bal daabo waa hab nidaamsan oo aan weligiis isbedelin oo ka kooban nidaam 3 weji ah. waxay isku dayaan inay qofkaas soo xirigeliyaan iyadoo u ballan qaadaya lacago caanimo iyo albaabada loo furo. haddii uu aqbalo uu ka mid noqdo ciyaarta. haddii uu diidana waxay u gudbaan wejiga labaad. waxay u gudbaan tallaabada labaad oo ah sumcad dil oo warbaahinta loo adeegsado si dadka looga horkeeno. haddii xitaa taasi fashilanto waxay u gudbaan wejiga 3. waxay u maleegaan dambiyo been abuur ah iyo maxkamado, waxaana gacan ku siiya hay-adaha sirdoonka iyo awoodaha waaweyn iyadoo gacanta ugu jira. haddii intaas oo dhan kadib uu qofka weli sii wado dagaalka, nasiib daro halkan waxaa timaado tallaabada ugu dambeysa oo ah khaarijinta, laakiin hab u eg dhimasho dabiici ah. waxaana sidaas oo kale ay qabsatay Bob Marley, Michael Jackson, Tupac iyo kuwo kale oo badan siduu badanku ahaa. waxaana maanta daha ka faa'iideynaa sirtaas. waxaa dhacday in feelasha sirta ee Epstein laga helay waraaqo ay isdhaafsadeen qof aan la garanayn iyo Epstein. qofkaas daahsoon wuxuu Epstein weydiinayay su'aal aad u yaab badan: maxay ku samayn doonaan Bob Marley? Epstein wuxuu ku jawaabay waxba kaliya wuxuu diiday inuu yimaado aagga, mana habboona in arrinta la buunbuuniyo. qofkii daahsoon ayaa yiri, laakiin si fiican baan u aqaana isaga. Bob ma aamusi doono, wuxuu ka hadli doonaa carruurta. daawadayaal, qaybteena koowaad intaasa noogu ekaato. qaybteeni insha allah qaybta xigta waa inoo mar kale.